filimkani waxa uu ku bilaabanayaa Mr Bean oo maxkamad dhex taagan isagoo wejigiisa ay ka muuqato qoomamo. Dadkii dhibaatada gaartay ayaa hortiisa fadhiya. Mr Bean waxa uu bilaabayaa inuu raaligelin ka bixiyo wixii dhacay, laakiin marka xaakimku weydiiyay sababta uu waxaas oo dhan u sameeyay, wuxuu salayaab leh u sheegaya hal shin isagoo ku doodaya in dhibaatada oo dhan ay iyada ka bilaabatay. Sheekaduna markaas waxay dib ugu noqonaysaa maalintii wax walba bilowdeen. lamaane maalqabeen ah oo lagu kala magacaabo Nina iyo Kristen ayaa isku diyaarinaya fasax dheer, waxaana gurigooda weyn ilaalin doona nin cusub oo lagu magacaabo Mr Bean. markii Mr Bean soo gaaray albaabka guriga, kaamirooyinka amniga ayaa marka hore hubinaya aqoonsigiisa, kadibna albaabka ayaa loo furayaa. isla markii uu gudaha galana waxa uu la yaabayaa quruxda guriga iyo hantida qaaliga ah ee taalo, waxaana muuqata inuusan weligiis horey uga shaqaynin guri sidan u weyn. Nina ayaa guriga ku wareejinaysa iyadoo mid mid u sharxaysa waxyaabaha uu u baahan yahay inuu ogaado. waxay sidoo kale baraysaa eegooda Cupcake iyadoo u sheegaysa inuu aad uga dhaxtiro maadaama eego xasaasiyad daran ku qabo subaga lowska. Christian ayaa isna tusaya garaashka oo ay yaalaan baabuur aad qaali u ah, kadibna wuxuu u sharxayaa sida loo furo maktabada sirta ah iyo habka amniga ee guriga. Mr Bean wuxuu isku dayayaa inuu qoro, balse Nina ayaa u sheegaysa in wax walba ay ku qoran yihiin buugga tilmaamaha oo ay siisay. waxay sidoo kale si adag uga dardaarmaan in Cupcake uusan marnaba u ogolaanin inuu galo maktabada ama qolka jiifka. markii ay hubiyaan in Mr Bean wax walba fahmay, waxay ugu tagaan guriga iyaga u baxaya fasax dheer. Mr Bean markuu kaligiis noqdo wuxuu si farxad leh u wacayaa gabadhiisa isagoo u sheegaya inuu ugu dambeyn helay shaqo wanaagsan, isla markaana uu rajeynaya inay dhowaan wada aadi doonaan fasax uu muddo dheer ku riyoonayay. laakiin intii uu la hadlayay gabadhiisa waxaa silma filaan ah guriga uga soo muuqata shini. markii hore Mr Bean wax muhiimad ah ma siinin, balse markii uu isku dayay inuu eriyo waxaa si kamaha gacanta ugu dhacaysa taalo qaali ah oo isla goobtii ku jajabta. Mr Bean wuu argagaxaya wuxuuna bilaabayaa inuu raadiyo koolo uu ku hagaajiyo. dhowr isku day kadib ayuu ugu dambeyn ku guulaystaa inuu taaladii sidii hore ku soo celiyo isagoo neef dheer oo degan qaadanaya. kadib wuxuu go'aansanayaa inuu cunto karsado, wuxuuna soo qaadanayaa cunto gasacadaysan, kadibna dabka ayuu shidayaa. balse mar kale indhihiis waxay qabtaan shinidii oo weli guriga ku dhex wareegaysa. Mr Bean wuxuu bilaabayaa inuu dabagal isagoo isku dayaya inuu koob ku qabto, laakiin mashquulkaas awgiis ma oga inuu shiday foorno khaldan, waxaana si tartiib u gubanaya buuggii tilmaamaha ee milkiilayaashu uga tageen. intaas kuma ekaan Cupcake ayaa isna arka shinida, wuxuuna dabagalaa ilaa uu gudaha uga xirma maktabadii sirta ahayd. Mr Bean markuu arrintaas ogaado wuxuu isku dayayaa inuu albaabka furo, balse wuxuu iloobayaa lambarkii sirta ah ee albaabka lagu furayay. markuu raadiyana buuggii tilmaamaha wuxuu ogaanayaa inuu dab qabsaday oo gebi ahaanba gubtay. Mr Bean wuxuu galayaa xaalad aad u adag, buuggii tilmaamahana wuu gubtay, eegiina wuxuu ku xiran yahay maktabadii, halka shinidii yareed ay weli si degan guriga ugu duulaysa iyadoo aan wax cabsi ah qabin. Mr Bean wuxuu isku dayayaa inuu xasuusto lambarkii lagu furi lahaa maktabada, balse dadaalkiisa oo dhan wuxuu noqdaa mid fashilma. markasta uu lambar khaldan geliyana nidaamka amniga ayaa sii adkeynaya furitaanka albaabka. isagoo quuska jooga ayuu go'aansadaa inuu jabiyo muraayada maktabada, wuxuuna soo qaadanayaa dubibe, balse halkii uu muraayada ku dhufan lahaa dubihii ayaa dib ugu soo buuday muraayada, wuxuuna si toos ah ugu dhacay sawir aad qaali u ah oo gidaarka suran. sawirkiina wuu dalaacaya. Mr Bean wuxuu gartay inuu dhibaato cusub galay, nasiib wanaagna wuxuu xasuusanayaa in albaabka cod lagu furi karo. markii uu isticmaalo codkii loo dejiyay nidaamka, albaabkii wuu furmayaa. Cupcake-na wuu ka soo baxayaa qolka. Mr Bean wuxuu isku dayayaa inuu wax walba sidii hore ku soo celiyo, kadibna wuxuu u baxayaa inuu seexdo. habeenkaasna wuxuu la hadlayaa gabadhiisa, waxayna u sheegaysaa inuusan weli helin shaqo rasmi ah oo ay hooyadeed ku qanacdo. asigana wuxuu isku dayayaa inuu niyad u dhis isagoo u ballan qaadaya in marka shaqada dhammaad ay wada aadi doonaan fasax uu muddo qorsheynayay. markii uu telefoonka dhigana wuxuu codkiisa ku xirayaa nidaamka amniga ee guriga, albaabadiina si toos ah ayay isu qufulayaan. laakiin daqiiqado yar kadib shinidii ayaa mar kale kasoo muuqata qolkiisa. Mr Bean oo xanaaqsan ayaa bilaabaya inuu dabagalo isagoo aan dareensanayn inuu furay albaabka qolka. isla markiiba alaarmiga guriga ayaa bilaabaya inuu dhawaaqo. subaxdii xigtayna booliiska ayaa yimaada si uu u hubiyo sababta uu alaarmiga digniinta xalay u dhawaaqay. Mr Bean wuu soo dhaweynaya isagoo isku dayaya inuu si caadi ah ula hadlo sarkaalka, balse nasiib xumo shinidii ayaa gudaha surwaalkiisa gashay inta uu sarkaalka la hadlayay, wuxuuna bilaabay dhaqdhaqaaqyo yaab leh oo uu isku dayaya inuu shinida iska saaro. arrintaas oo sarkaalka ka dhigtay inuu si la yaab leh u eego. markuu sarkaalka baxo, Mr Bean wuxuu go'aansanayaa inuu mar kale dabayn u dhigo shinida. wuxuu soo qaadanayaa subaga lowska, wuxuuna marinayaa midi, kadibna wuxuu dhigayaa gudaha microwave-ka isagoo rajeynaya in urtaas ay shinida soo jiidan doonto. isagana meel ayuu ku dhuumanaya isagoo sugaya, laakiin qorshihii mar kale wuu khaldamaa. Cupcake ayaa soo galaya jikada, wuxuuna leefleefayaa mididii uu saarnaa subaga lowska isagoo aan Mr Bean arkin. isla waqtigaasna shinidii ayaa gudaha microwave-ka gasha. Mr Bean oo malaynaya inuu ugu dambeyn guulaystay ee albaabka ku xiraya, wuxuuna shidayaa microwave-ka si uu uga takhluuso, laakiin ilbiriqsiyo kadib wax uu dareemayaa inuu khalad samaynayo. wuxuu meesha oo dhan ka soo saarayaa microwave-ka, wax uuna geynayaa banaanka si uu shinida u sii daayo. shinidii ayaa banaanka u duusha, balse halkii ay iska tegi leed waxay si toos ah ugu soo laabataa dhankii guriga. Mr Bean ayaa u orda dhanka albaabka si uu u xiro ka hor inta aysan soo gelin, balse wuu ku guuldareysanayaa
albaabkii ayaan isaga dibadda ugu xirma halka shinidii ay si degan mar kale ugu dhex wareegayso guriga. Mr. Bean waxa uu fahmayaa in dagaalku uusan sahlaneyn. Mr. Bean waxa uu bilaabayaa inuu raadiyo waddo uu dib ugu galo guriga. Markaas ayuu arkayaa in Cupcake uu xirnaa qalab casri ah oo albaabka yar ee eyga lagu galo, kaas oo si automatic ah u furi kara. Si uu qalabkaas u helo waxa uu isku dayayaa inuu eyga ku soo jiito bisad. Cupcake ayaa u soo dhawaada. Mr. Bean waxa uu ka siibaa qalabkii qoorta ugu xirnaa isagoo u maleynaya inuu xal ka helay ayuu qalabkii qoorta ku xirtaa. Kadibna waxa uu isku dayayaa inuu galo albaabka yar ee eyga, laakiin nasiib xumo jirkiisa aad buu ugu weynaa albaabka waxaana dhexda kaga xaniibmaya albaabka, waxaana hortaala meel ay ka buuxaan saxaarada eyga. Intii uu isku dayayay inuu dib isu riixo Cupcake oo bisadii daba ordaysa ayaa Mr. Bean gadaal ka qaniintay taasoo si xoog leh ugu riixdo gudaha guriga. Inkastoo uu ugu dambeyn gudaha galay haddana wejigiisa iyo dharkiisa oo dhan waxaa qariyay wasakh. Inta uu wasakhda iska nadiifinayo shinidii ayaa mar kale ka soo muuqata. Mr. Bean oo xanaaqiisa cirka isku shareeray ayaa wax kasta u adeegsada sidii uu u qaban lahaa. Intii uu isku dayayay inuu dilo wuxuu si kama ah u jibiyaa qalab kale oo qaali ah oo lagu qurxiyay guriga. Shinidii ayaa ugu dambeyn gasha gudaha daloolka qiiqa ka bax. Mr. Bean wuxuu sii wadaa dabagalka isagoo aan waxba ka fikirayn, laakiin meesha ayuu ka soo dhacayaa. Isla waqtigaasna sarkaalkii booliiska ahaa ayaa mar kale yimaada guriga, waxaana Mr. Bean ugu digayaa in deegaanka ay ku jiraan tuugo guri jabsata isla markaana uu feejignaado. Mr. Bean ayaa madax u ruxaya isagoo iska dhigaya inuu si degan wax u maqlaayo, balse maskaxdiisa oo dhan waxay ku mashquulsan tahay shinida. Markii booliisku baxo Mr. Bean waxa uu galayaa qubeyska si uu wasakhdii isaga dhaqo. Xitaa halkaas nasiib uma yeelan, isagoo biyaha furaya ayuu si qalad ah u shidaya nidaamka codka guriga, waxaana halkii biyo kasoo daadan lahaayeen ka yeeraya muusig cod dheer ah. Markii uu ugu dambeyn qubeysto shinidii ayaa mar kale kasoo muuqata musqusha. Mr. Bean wuxuu markaan ku buufinayaa biyaha qubeyska, balse shinidu waxay u duushaa dhanka qolka jeefka ee milkiilayaasha. Mr. Bean marka haraya waxa uuna dabagalaya isagoo adeegsanaya qalajiyaha timaha si uu habada ugu afuufo. Waxyar kadibna shinidu waxay ku dhuumataa biyaano qaali ah. Mr. Bean ayaa isku dayaya inuu isticmaalo nidaamka otomaatiga ee biyaanada isagoo rajeynaya in furayaasheedu ay shinida dili doonaan, laakiin qorshaasna waxba kama soo baxan. Markii dambe wuxuu soo qaataa mashiinka nuuga qashinka. Wuxuu ugu dambeyn ku guuleystaa inuu shinidii qabto. Farxad darteed ayuu isla markiiba bacdii mashiinka ka saaraa, dibna wuu qabadsiiyey isagoo hubinaya in shinidu dhimatay. Laakiin Mr. Bean ma uusan ogeyn in ilbiriqsiyo ka hor inta uusan bacda gubin shinidii ay si qarsoodi ah uga baxsatay. Isagoo u maleynaya inuu dagaalkii ku guuleystay ayuu guriga nadiifiyaa. Kadibna haweenkii wuxuu la hadlayaa gabadhiisna waxay u sheegaysaa in hooyadeed aysan ogolaan doonin inay la kulanto ilaa uu helo shaqo joogto ah. Mr. Bean ayaa mar kale u ballan qaadaya in marka shaqadan dhammaato ay wada aadi doonaan safarkii uu muddada dheer uu qorsheynayay. Laakiin islaameenkaas iyadoo Mr. Bean hurdaa, laba tuug ayaa si qarsoodi ah u soo gala guriga. Waxaan u yimaadeen inay xadaan farshaxano qaali ah, balse markii ay ogaadeen in dhammaan farshaxanadii guriga yaalay ay ahayeen nuqulo aan qiimo lahayn waxay go'aansadeen inay iska baxaan. Nasiib darasi Mr. Bean oo hurdada ka soo kacay ayaa mar kale arkaya shinidii oo weli guriga dhex duulaysa. Isagoo qeelinaya ayuu dabagalaya taasoo cabsi gelinaysa tuugadii oo isla markiiba ku dhuunta gudaha guriga, iyagoo u maleynaya in Mr. Bean uu ogaaday joogitaankooda. Laakiin Mr. Bean wax fikrad ah kama hayo tuugada, wuxuuna weli dagaal aan dhammaanin kula jira cadowgiisii ugu weynaa oo ah shinida. Subaxdii xigtayna tuugadii weli waxay ku dhuumanayaan guriga. Mr. Bean wuxuu moodayaa inuu gurigu ammaan yahay halka tuugadii ay u maleynayaan inuu iyaga baadigoobayo. Waxyar kadib isla sarkaalkii booliiska ayaa mar kale yimaada guriga. Wuxuu sheegay in darisku ay arkeen gaari laga shakiyay oo habeenkii guriga ag taagnaa. Mr. Bean iyo sarkaalkii ayaa bilaabay inay hareeraha eegaan, waxaana silma filaan ah indhahooda ugu dhacaan labadii tuug oo weli gudaha ku dhuumanaya. Tuugadiina markiiba waa la qabtaa. Mr. Bean wuxuu noqonayaa ninka sababta u noqday in booliisku gacanta ku dhigaan. Markii xaaladu degta ayuu Mr. Bean dib ugu soo laabanaya dagaalkiisii shinida. Wuxuu soo qaataa qalab kala duwan oo ay ka mid yihiin sunta cayayaanka lagu dilo, sidoo kale rooti iyo subaga lowska, isagoo dabin cusub u diyaarinaya. Laakiin sidii caadada ahayd, Cupcake ayaa mar kale ka khasa qorshaha. Wuxuu cunaa cuntadii dabinka loo dhigay halka shinidiina ay sidoo kale ku dhacdo sunta. Udeer kadib labadooduba dhulka ayay ku dhacayaan iyagoo miyar dawoolmay. Isla waqtigaas nin ayaa teleefanka ka soo wacday Mr. Bean iyadoo maqashay in habeenkii guriga ay tuuga soo gashay. Waxay ugu horreyn weydiisaa xaaladda Cupcake. Mr. Bean markuu eegay ayuu arkay eegii oo aan dhaqdhaqaaqaynin. Si aysan uga shakin ayuu bilaabay inuu gacmihiisa ku dhaqaajiyo jirka eegi isagoo ka dhigaya inuu ciyaarayo. nasiib wanaagna muuqaalka teleefanka ayaa silma filaan ah u xumaada. Mr. Bean wax uu ka faa'iideysanayaa fursadaas, isagoo ka baqaya inuu eega dhinto ayuu Cupcake ku qaadaa gaarigii qaaliga ahaa ee Christian si uu dhaqso ugu geeyo dhakhtarka xoolaha. Laakiin shinidii oo mar kale soo noolaatay ayaa gudaha gaariga ka soo muuqata. Mr. Bean oo baabuurka wada ayaa mar kale bilaabaya inuu la dagaalamo shinida, taasoo keenta inuu gaariga meel walba ka dhaco gudaha baabuurkan uu si weyn u dhaawacmo. Markii uu eega ka soo celiyo dhakhtarka, wuxuu isku dayaya inuu gaariga hagaajiyo oo uu wax kasta qariyo, balse dhaawacii gaariga ma ahan mid si fudud loo sixi karo. Mr. Bean hadda waxa uu dareemayaa in shinidu aysan weligeed ka tegaynin. Wuxuu internetka daawanayaa muuqaal sharxaya sida loo dilo shinida kaligeed nool. Kadibna waxa uu sameynayaa qorshihiisii ugu halista badnaa. Wuxuuna diyaarinayaa qarax yar oo guriga lagu dhex sameeyay isagoo malab isticmaalaya si uu u soo jiito shinida.
shinida. Markii shinidii dabeenka soo gashay Mr Bean wuxuu shiday qaraxii laakiin wax walba hal mar ay gacantiisa ka baxeen. qaraxii yaraan waxa uu isku bedelay qarax aad u weyn kaasoo gilgilay guriga oo dhan. isla daqiiqadaas Nina iyo Kristen ayaa kasoo laabanaya fasaxoodii. waxayna meel fog ka arkaan gurigoodii oo qiiq iyo boor cirka isu shareerayaan. markii Mr Bean oo boorka dhexdiisa kasoo baxay wuxuu eegayaa hareerihiisa wax uuna arkayaa shinidii oo weli nool. markaas ayuu gebi ahaanba waayay dulqaadkiisii wuxuuna bilaabay inuu guriga dab qabadsiiyey si uu hal mar uga takhaluso shinida. laakiin ilbiriqsiyo kadib Nina iyo Kristen ayaa albaabka kasoo galay iyagoo indhahooda ku arkaya Mr Bean oo gurigoodii qaaliga ahaa dab qabadsiinaya. Mr Bean waxaa la geenayaa maxkamadda waxaana lagu xukumayaa 3 sano oo xabsi ah. 3 bilood kadibna isagoo xabsi ku jira wuxuu maqlayaa labadii tuug oo ka sheekeynaya in Christian uu isagoo qorsheeyay khiyaanada caymiska si uu lacag badan uga helo shirkadda caymiska. Mr Bean wuxuu xogtaas u sheegaya sarkaalkii booliiska taasoo keentay in Christian la xiro. Mr Bean waa la sii daynaya shirkadda caymiskana waxay siinaysaa 5,000 oo baan oo abaalmarin ah maadaama uu runta banaanka keenay. ugu dambeyn isaga iyo gabadhiis waxay aadayeen safarkii uu muddada dheer u ballan qaaday. laakiin isla markii uu halkaas gaaray shinidii ayaa mar kale ka soo muuqata. filimkeenan wax uu dhamaanaya Mr Bean oo shinida bursanaya iyo adigoo muuqaalka laag saaray YouTube keenan ku soo biiray. waana muuqaalkan iyo muuqaaladii xigo maca salaama.